وعشرة حنوكله وحنوكا قولي والله لا تاكا عجوا وساشا دي waxay tahay kabarta xaaskayga hadirtaan waxaan leeyahay aad ayaan ugu faraxsanahay iyadoo aanan aqoonin waxay tahay diinta muslimka aanan aqoonin dad muslin ah marka meel lagu bartana diintana aanan aqoonin marka waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inay xijaab xiran tahay inay tahay kabar muslin ah qaabkay isku baratay marka waxaan isku baranay kabartaan marka hore waxaan ka shaqay jirnay isku meel ayaan ka wada shaqay jirnay marka waxaa u badan shaqaalayaasha Soomaali marka waa aragtay Soomaalidana waa iska kaftan badanahay kabartan waa la kaftamnay marka ayadana waa iska jeclaatay kaftankii iyo dadkan dhaqankooda si iska yihiin iyo markii ما تقانتا سومالي عنتدا وذا كينا عنتدا شر جريانو ما تقان أيضا حتى على وعي قفك أجنبي على وعي وحلا كال سفر وحكي عن مركا أيضا حس كانوا قتسيد الصومالي دي وحي تتكي آد وسودويين سيدي ولا عليه مركا ساسا مركا ورسكو برا نورتا اوكي دين تقابك وقنا على حسين قاود مركا أرنتا كالي أو دين المسلم كسيلا ولا دعي واحد هاي waan u sheegay horta meesha ka imaadeen aniga Soomaali ahay inaan ku dhashay dhinacaas East Africa marka ay horta Soomaali ma yaqaanaan kuwa waxa yaqaan oo dadka waaweynka oo fiirsada ma taqaanta newska iyo waxaas laakiin dadka yarka badan ma yaqaanaan oo kula yaabay marka dhaa Soomaali halkee way ku dhahan ku taala Soomaaliya marka waan u sheegay inaan muslim ahay marka kaftan ahaan marka hore wax kasto waxaan ku dhahay horta aniga hadaan waxaan guursanayaa kawar muslina iyo ilmahaygina muslim noqdaan baa rabaa baan ku dhahay marka hore inta kaftanka ko oo sheekada aan isku bilaabinay marka ayada waaba ogeed ka bacdina markii arinta shukaansiga waxaas uu sii gaarina waxaan xoog ku saaray in horta ay fahanto horta diinta muslimka waxay tahay maxaa yeelay dad badan waxay ka fahansan yihiin islaamka inuu yahay wax xun waxay arkeen 9/11 soo dhacay qarixi iyo waxaas ay arkeen marka islaamka dad badan aan nacab marka ayada waxa ku dhahay horta YouTube video baa ka tusay way aragtay waxay fiirsatay dad badan oo soo muslimay oo markii hore ahaa gaalo oo diinta muslimka had soo galay oo ka sheekeynaya noloshooda waxay aragtay taqaadiriyaal dad lacag leh saynisyaal dad ah wixii dhan oo ka sheekeynayo diinta muslimka inay tahay diin sax ah marka ayada ayaa ku aan gaartay marka inay barato xil iska saartay oo ay noqoto qof muslina way xiisaysay markay aragtay qiiro ayaa qaatay waxaa dhacday markasto ay daawanayso inay mataqaanta ilmeyso marka ilaahay qofkii hanuuninayana asaa hanuunsan marka waa kaasa hadda ka waran marka adiga maadaama qof Soomaaliya tahay in gabar Soomaaliyeed aad guursatid iyo in gabar kale aad guursatid oo cadaan intaadan guursan gabadha ra'yi ahaan maxaad qabtay oo maxay kula ahayd arrintaas ani horta ra'yigii hore aan qabay waxa ahaa inaan arooso gabar Soomaaliya gabdho Soomaali badan waa wada sheekeysanay intaan Mareykan imaanin oo aan joogay wadankii Afrika marka Mareykan imaadana gabdho kale waa sheekeysanay laakiin ilaahay horta qofkii uu calaf ku darayo ayaa la aroosaa horta ma ku jirin aniga inaan arooso qof ajnabi ah waxaan ku tala jiray inaan arooso weligay qof Soomaali ah laakiin hadda markaan imaaday dhinacan iyo meesha hadda aan ku noolahay waa Wisconsin Madison ma ku badno dumarka Soomaaliga dumar ajnabi ayaa ku badan oo diintan aqoonin marka gabartan saa u sheekeysanaynay marka
marka adiga diyaar u tahay diintana qof diinta rabo oo rabo inuu muslim noqdo marka adiga inaad meel cidla ugu tagto dembigeeda ay leedahay marka sidaas ayaan mataqaanta aan isku guursanay. Amira ayaa waxaan sidoo kale weydiiyey waxa ku dhaliyay inay qaadato diinta Islaamka. Ma inoo sheegi kartaa qaabka aad u qaadatay diinta Islaamka iyo sababihii kugu dhaliyay? Markii aan la kulmay Shukri wuxuu igu dhiirigeliyay inaan wax ka fahmo Islaamka iyo waxa uu yahay. Su'aalo badan oo aan qabayna waxa uu isku dayay inuu iga jawaabo. Mar walba aan wax sii barto xiisaha aan u qabo Islaamku uu igu sii badanayay. kadib waxaan bilaabay inaan aniga qaas ahaan baaritaan sameeyo wax aqriyo daawado muuqaalo laga soo duubay dad Kirishtan ahaa sidayda oo kale waxaan rabay inaan ogaado waxa u dhaxeeya Kirishtanka iyo Islaamka markii hore waxaan u haystay in farqi weyn jiro balse waxa ii soo baxay in waxyaalo badan ay isaga mid yihiin waxaan ogaaday in Islaamku uu jawaabo badan u hayo su'aalo weligay niyadeeda ka buuxay markaan yaraa haddii su'aal diin ku saabsan aan weydiiyo waalidkayga waxay ii sheegi jireen in la iga baahan yahay in iimaan aan la imaado tashwiishkana iska saaro iimaan la imow bay igu dhihi jireen laakiin aniga midaas ma aysan ahayn waxaan ku qanco kadib waxaan sii waday daawashada muuqaalo ka sheekeynaya waxa Islaamku yahay mararka qaar waan qiiroon jiray aad baan u ooyi jiray waxaan markaas kadib niyadeyda geliyay in arintani tahay wax muhiim u ah noloshayda kadib waxaan go'aansaday inaan muslim noqdo arin quman ayayna ahayd waxaan kala weydiiyay Amira inay jiraan waxyaalo ku adag oo ay wajahday kadib markii Islaamka ay noqotay waxayna tiri qoyskayga oo muslim ahayn ayaa ahaa dhibka ugu weyn hooyaday waa Kirishtan anigana muslim marka waa arin adag sidoo kale barashada diinta hadda waxaan isku dayayaa inaan barto Carabiga laakiin waqti ayuu ugu qaadanayaa sidoo kale xirashada xijaabka oo hore igu ahayd dib laakiin hadda waan jeclahay wearing hijab I love it dhanka kale hadaan ku eegno sheekada Ibtilo waa nin dhalinyaro ah oo muddo ah ku noolaa wadanka Mareykanka waxa uu nolol la qaybsaday isla markaana gabar u dhashay haweeney Mareykan ah oo aan muslimad ahayn waxa uu kala kulmay dhibaatooyin fara badan waxa dhacday intaan kala tagin ka hor in aan mataqaana awood aan isku yeelano marka aan kala tagnana ay arimihi ay noqdaan wax farka bax ah maxkamado ana lawyer ana inaan gabadha xaquuqdeedii boqolkii 80 ama 90 ama 95 ayada la siiyo aniga aan shan aan qaato gabadha ay ku dhashay sax soo ayada lagu wareejiyay kadib maxaa dhacay kadib in aniga aan taakulo xaq lacagad liga qaado barse igu noqoto muraad dilaac aaban ay horta macnaha wixii ubadkay ku baxa kama dhibtoonayo macnaha alashan oo ku faraxsanahay barse wixii aan u qorsheeyay ama aan ku taakuleynay in matqaanay dhan la mariyo waa dib ay noqotniyo soo marka dawladda lacag kaaga jarta oo gabadha hore u qabtay alla siyaasi cunugta ku hayso ay ugu taakulayso oo ugu nafaqayso sax barse saas ma dhacdo lacagtii ama taakulayntii gabadha horta ay isma taakulan karto waa dhalaan yar waa cunug yar sax hooyadii la rabay in ay mas'uuliyadda qaato mataqaanayay oo maadaama aabaheeda looga soo jaro lacag la rabay in ay gabadha ku qarash garayso ma ay sameysay danaheeda kale ku raacataa waa karta marka waa dib weyn oo aan filayo aniga inaan isaameyn dad kale oo badan Soomaaliya imaaday qurbaha qaasadan waqooyiga America Ibtilo waxa uu noo sheegay oo uu ku andacooday in nolosha noocaas uu galo ay sabab u hayeen Soomaali kale
waxa uu jeclaa gabar Soomaaliyeed waxaana loogu diiday arrimo la xiriira heebtiisa Soomaali ayaan bir jeclaaday marka waxaa dhacday inta aan isjeclaanin in dadka aan mataqaanayay aan saa u sii fiirinin balse markii aan isjeclaanay aan isku mid aan noqonay isku xubin aan noqonay in mucaaradkeena u bato la yiraahdo ana ninkan ibtulwa nin Ethiopiana waa nin Kenyan ah waa nin sidan ah waa nin san ah waa nin balwalde waa nin tuug ah macnaha leeyahay been abuursado dadkeedii marka ku dhahaysaas dadkeedii iyo saaxiibadeedii iyo qaar ka mid ah saaxiibadeeda waa gartay marka waxa dhacday xataa in gaari lagu bursado guriga la yimaado la yiraahdo hadii gabadheena macnaha waxaan ka wadaa gabadha Soomaalida hadii gabadheena aad ka harweysid in aan boolisku ku waceeno aan ku xir doono marka Mareykanka joogtay markaas Mareykanka mooyaan okay marka la yaab ugu noqotay in mataqaanay dad Soomaaliyeed usaasoo kale igu hanjabaan marka deynta la xir lahaa waxaan iri anu ba ilaah u haraya dhanka kale waayeelka iyo waxgaradka Soomaaliyeed waxay ka soo horjeedaan guursiga ama la noolaanshaha haweenka ajnabiga ah gaar ahaan kuwa aan diinta lahayn ama haysta diimaha kale xasan abgooy oo oday Soomaaliyeed ayaa ra'yigiisa cabiraya alxamdulilaahi rabbil caalamiin artu waxa in la isweydiin loo baahnaa way tahay Cabdiqaadir waxaa jiro dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo maanta dhibaatooyin waaweyn ku haysto wadanka Mareykanka kullu kama wada hadli karo laakiin sidii la wada tahay intaan arkay ay ugu filan dhalinyaradana badanaa waxaa duubsado oo dhalinyarada kala shaqaysato awana baasha ama balwada leh ayaa horta ugu muhiimsan dadka inay baabi'iyaan barana dadka cadaanka ah waxaan haddooba dhalinyaro badan oo Soomaali ah aan loo kala hayo qaar gabdho badan loo hayo wiilal loo hayo ilaa haddana xabsiyada ku jiraan sababada keenayna xabsigan ay tahay laana ninkii ma shaqaysto noqday waa bad credit waxaa lagu leeyahay lacag fara badan dawladii child support laga rabaa ciyaalkii uu dhalay naagta cadaankan ujeedada kale ma lahayo waxay leedahay hal laga dhalo ama laba laga dhalo dhalinyarada oo xisaabtamay leeyihiin weli waxaan ku talin lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo dalka Mareykanka ku nool ama Yurub ha noqoto naagaha interest-kooda ah inay wax dhalaan oo beerina adiga dib ku keenayo inay ka fogaadaan waxay leedahay guri loo income baan degayaa loo income-kay degto asiga waxay leedahay ordarta tag markii asiga soo erisay dawladdu waxay weydiisanay inay kala geedataan ninkii ka tegay gurigii dawladdu siinay subax dambe leedahay kaale ilmihii ii hay wuu ku qasban yahay ilmihiisi inuu hayo ayayna doorka wareegto hadduu yidhaahdo waa kugula sii noolaanana askarinta ugu wacday sidii xabsiga dhigta haddana kamana fogaadaan mana ka danaystaan waxaan leeyahay inta dhalinyaro aan aqaano ama saaxiibadeeda ama ku sii socdaba war ka fogaada heli maysin dhaqan iyo midna aan u leenahay ma laha ku diin ma nihi isku iimaan ma nihi qaraabo ma xariirsan kartid ehel aada xariirsan kartid ma laha ehelna ayadaa ku ah xabsina waxaad u tahay xabsiyada Mareykanka gocashada xanuun kale waxaan uga golleeyahay way waa barbaari haddaad gabar cadaaniyo dhulka gaalo keentaan haddaad gabar cadaaniyo dhulka gaalo keentaan midaanku garaabayn dhibta kaa gargaarayn xilka kala gubanayn gacal haddaad ka dhigataan
guumays shisheeya haddaad gacanta qabataan hablaheenu guryo gayaan iyay ka sugayaan